السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحارة فيديوغان إنو gaaro gabar kastoo iska dhigaysa naag noolnimadu ma aha wax fudud. Hooyo kastoo naag nool ah, I feel for you. Wuu ku dareemaa because arrinka la dhaho naag nool waana lagu khiyaamay. We should not be naag nool. We should not be naag thriving Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naagta wuxuu ka abuuray someone's rib bone. Lafta feerta laga abuuraaday, which means we should be taken care of. Allah subxaanahu wa ta'aala diintiisa macaan waaye, laakiin most of us ma ku dhaqanno. Gabadh waxaa la dhahay waxay ku jirtaa first in the care of her dad, and then in the care of her husband, and in case something happens with that husband, in the care of her brother. Like wiilasha waxaa la dhahay waxaad ka tihiin mas-uul dumarka oo familkiina ku jiro. And I feel that most of us have neglected that maxay ahayd mas-uuliyaddaas. Rag badan oo mas-uuliyaddaas dayacay, and dayacaadda ay ka dayaceen it exhausts us. Anakin dhibaysa. Like this is the cry that every hooyo ay oyso. This is the cry that every thriving mom, every naag nool is crying behind closed doors, because this shit is so exhausting. You have no one. Like naftaadii inuu qof ka walwalay ahayd, taas ilaahay siduu noo abuuray. But now iska dhaaf naftaadii inuu qof ka walwalo, adigiyaa nafaf kaleeta ka walwalaysid. Nafaf kaleeta bariiskoodiyaa ka walwalowsaa, mustaqbalkoodiyaa ka walwalowsaa, beri siday noqon doonaan ka walwalowsaa. That shit is too exhausting. That's something we should not do. So this video is to inay gabar kasta dareemto. We all doing this. Kulligeena behind doors we crying. Gabar kasta ujeedid that is working hard, that is going here and there, and that's doing her best. I just know that she inside feels good, because inside this thing is very hard. It is very hard. It is very exhausting. It is, oh my god, it is something we should not do. But circumstance have made us wear shoes that is bigger than us. Kaban naga waaweyn aan wadana. And gabdhaha raba feminist ideology inay naga gadaan, trying to act like nimankii anaka equal anahna equal manihin. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu dhahayay walirrijaali calayhinna daraja. And you know that daraja is not because of maxay ahayd ilaahay inuu na kala jecel yahay, but it is because Allah created us different. Ilaahay wuna kala duway khalqigiisa. Asa abuurtay dadkan soo maha, so yaa ku qabsan karo, yaa ku dhihi karo. So in creation-ka we are different nibankii anaka. And maxay ahayd ilaahay aayad kaleetana wuxuu ku leeyahay الرجال قوامون على النساء. But this is the thing dadka ay ilowaan. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا, and because of what they pay. intaasoo ilaahay qawaamada nimanka u siiyay. Nimana rabaan inay qawaamo noqdaan, but they do not even do يعني ما ينفق يعني لأهله. أهلkiisa ma ku anfaqaayo. He doesn't like to provide for his family, and wuxuu rabiyaa inuu noqdo at the same time the qawaam. So this whole ideology gana laga gaday gabartu iyo ninka isku mid waaye. We don't want that. Ma rabno inaan isku mid noqono. We're not even thriving for that. We're thriving for nin na kafaala qaado, that has a bag, that worries for us and our future children and the children that we already have. nin dhabarkan wax kasta oo yani nagu soo wajaha dhabarka u dhiganayo. And nimankaas adduunka way ku yar yihiin. To be honest,
is not existing. Marka, this video is to just let everyone know this thing called hooyo isku filan, naag isku filan xaaji, maxay ahayd naag nool. Fuck it. Wallahi, astaghfirullah inaa saas dhawayo, but I really hate that shit because I didn't choose to be naag nool. The thing is, do you want to be naag nool? I would say no, hell no, I don't want to be that. I'm not crying because I don't have that, you know, I'm not having good, I'm not crying for that. I'm actually in a place in my life that I'm really happy. I'm achieving my goals. I'm getting where I want to be, but it is exhausting. It's hard. This is, oh my god, in a million years I would never choose this. I would never choose this. I would choose the relaxing hoyo that, you know, cooks and cleans for her children and knows that the future is taken care of. You know how good that is to know that your future is taken care of. You don't need to worry for your future. I know qadarta ilahi. I know Allah subhanahu wa ta'ala koinka bariiska oo kuu qoray adoonan cunin. You're not gonna leave this world. That sits well with me. I know that for sure. But you have to run for it. It's not gonna come reach you. You have to reach it. And to be the one to go there or tegayso is hard. It's hard. And I just wanted to let my stress out there. Yeah. Ina bis ogatan. Hooyo nool is not easy. Naagta maanta guri ku jirto oo isku dayaysa inay noqoto hooyo nool, khimaarkaaga saas uu qoyi doonaa. Imagine that. I don't know if you can see. I don't know, but that's how much you're gonna cry. And it's not once, it's not twice, it's not many times. I break down helaysa in a week because so waxaa ku dhihi lahay reerkaaga dhaqo. Don't come for this naag nool shit. Wallahi, haddaa tahayne hooyo oo kaligeed taagan ama hooyo house maxayd ku jirto laakiin ninkaaga isku barbar dhigaysid. You wanna be the nin? You wanna be the nin? Waxaa ku dhihi lahaa no darling, let him do it. Let him do it. Ma fahamtay? oo inteeda u qaado waano. And don't worry for me. Noloshayda is perfect, alhamdulillah. I'm not makaxumi noloshayda, alhamdulillah. But I just want to say it is hard. So gabdhaha yaryarka hadda oo guurka ku galayana ogaada, it's hard. Please make sure he's a man. You're not gonna wear their pants adiga ha gashanin because surwaalkaas waa kaa weyn yahay, kabahaas way kaa weyn yihiin. And wiilalo, this is what hooyo Somali goes through. So haddaad wiil yar tahay, ka fikir hooyada waxay soo martay gabar kaleeta inay marin. Haddaad nin tahay oo naag leh ama xaas leh, ka fikir xaaskaaga. She's never gonna think of your future of your children's future ama her future haddii xaaskaaga tahay. Haddaa kala tagtiinna, make sure your children's future inay naagtaas ka fikirin. Maxaa ku soo haray aabba kastoo gabartaada ogaaw. I don't care haddii la qabo ama haddii la qabin. Know that anytime she needs you, you're gonna be there. Wiil kastoo walaal ahne, gabarta walaasha be her backbone. Talo isku wada fulan, kulligan waa wada haysanaa. Waa maalin jimca ah. Have a good day, inshallah. Waa idin jeclahay. Peace and love.